yaa yidhi ma jiro caashaq oo jaahilnimo sheegtay dhibsiyaa jacayl mooday oon garan jibbada haysa kuna sheegi jeefaafka jibbadiisa mooyaane jacdaxiisa yara qaaday oo siiti kulanti wacan wanaagsan daawadayaal jimco wanaagsan maanta waa maalin jimcaha tacalkayga waxa taagan mid kamid ah fanaaniintii aan hore halkan uga baahnay waa fanaan da'yar waa fanaan Soomaaliyeed inta badan asagoo ka maarmay inuu wax muusiga asagoo ku hayso maanta oo jimco ay tahay halkan aan kula kulannay mid kamid ah dabaqyada ugu dhaadheer magaalada Burco fanaanka waxaan weydiin doonaa dhowr su'aalood aad jeceshihiin oo fanaan Soomaaliyeed dabcan wuxuu ku sugan yahay magaalooyinka Soomaalida mid kamid ah saacad toddobaadba magaalo kamid ah aan tago waxaan kula kulmaa qof kamid ah dadka bulshada isla markaan is dhaho da'yarta Soomaaliyeed ugu caansan yahay waxaa maanta la jooga Cabdiwaduud alfanaan Cabdiwaduud ku soo dhawo Soomaali Pure Online aad baan ugu dhaweey wal maalin jimcaha baan kula kulannay kulli dasalaadii baa dhooban malaanay bal daawadayaal badan ay daawanaya halkan maxaad uga soo jeedinaysaa daawadayaasha dhammaan daawanaya iyo dhammaan taageerayaashayda iyo dhammaan faaniskayga waxaan leeyahay aad baan idin salaamaya qalbigaan idinka jecelahay kowdhi meel la iska jecelaado qalbiga jirta kowdhi mar allaana markaan aad arko way idin qeyrooda baan idin magaranaysa waxaad leeyahay yaa laabtaan idinka salaamay waa tahay Cabdiwaduud diinku dambeeyay baraha bulshada waxaad noqotay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa ugu saameynta badan baad ka mid noqotay maxaa kugu dhaliyay horta inaad baraha bulshada inta badan ka soo dhex muuqatid niyo horta fikirkan iyo dhammaan iyo fanka gabigiisuba wuxuu ugu dhashay yaraantaydii horta dad badan oo igula taliyay way jiraan oo igu yidhi maxaad fanaan noqon weyday ninka cod macaan baa tahay maxaad fanaan noqon weyday marka aniga laftigeygana hobbigaygu buu iska ahaa fanka ilaa yaraantaydii waan jeclaa ma garanaysaa marka barahan bulshadana adigu si kadisa un baa laga yaabaa inaad kula kulanto ama rag dhalinyarada magaalada joogta ama youtuberska inaad kula kulanto deetana ay ku weydiiyaan su'aalo maadaama ay ku garanayaan xaggan bahda social media waxaan ku soo baray barigan riwaayadaha matali jiray jilaabad ka soo bilaabay jilaabaan ka soo bilaabay imika fanaan baa taban waa shaqo fiican baad soo qabatay waqti badan baad ka bixisay inaad hawshan baraha bulshada aad ka soo dhex muuqatid maanta jimcaha tahay bulsho badan oo ina daawanaysa waxaad u haysaa waxaan u qaadayaa heestii Muuse yaa yidhi ma jiro caasha maxay oranaysaa yaa yidhi ma jiro caashaq oo jaahilnimo sheegtay dhibsiyaa jacayl mooday oon garan jibbada haysa kuna sheegi jeefaafka jibbadiisa mooyaane jacdaxiisa yara qaaday oo sii jira daawadayaal heestaas waa hees uu qaadi jiray mid ka mid ah fanaaniinta aad soo kartid Somaliland ama dhalinyarada fanaaniinta Soomaaliyeed kana tirsan xidigaha geeska kuwa ugu caansan buu ka mid yahay waa fanaan da'yar oo halkan igula sugan maalin baa cid buu leeyahay maalin baa fanaan baa codkiisa ku qaadaa wax maanta Mursal Muuse iyo isaga aynu sheegayna balka cid macaanaada yaa yidhi ma jiro caashaq oo jaahilnimo sheegtay dhibsiyaa jacayl mooday oon garan jibbada haysa kuna sheegi jeefaafka yaa yidhi ma jiro caashaq oo jaahilnimo sheegtay dhibsiyaa jacayl mooday oon garan jibbada haysa kuna sheegi jeefaafka jibbadiisa mooyaane jacdaxiisa yara qaaday oon sii jirayn maalmo yaa yidhi jidhku raacay jibbadiisa mooyaane jacdaxiisa yara qaaday oon sii jirayn maalmo yaa yidhi jidhku raacay waa beendhe jaan qaaday ama wajidingooyo warbaalku waa jawhar janna gaaban weeyaane jahwareer ha laga day
jahwareer halaga daayo kama daalo jeedaalo hadba geysta ay joogto oo kamana soo jeesto markaan dhaayo jaaheeda ku jiheeya laabtayda kama daalo jeedaalo hadba geysta ay joogto oo kamana soo jeesto markaan dhaayo jaaheeda ku jiheeya laabtayda waran caashaq baa jidha wanaana joog baagaadha oo jidhidhi caasaaqda marra waaxid hees aad u macaan dee imika waxaan sooran karnaa wadda fanaankii hore ee heesta maska laha kanaynu ku bedelin alfanaan cabdiwaduud aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka sida gaarka aad noga aqbashay Somali Pure Online ba ku wareysanaysa maxaa leedahay Somali Pure Online iyo Somali Pure Online oo kulli waa asxaaban taageero dhamaantiin waxaan leeyahay go forward hor socda asxaabta dhamaantiin jimcaha wanaagsan jimcaha lamida macaamiisha la jimcaha asxaabta dhamaan taageerayaasha waxaan leeyahay qalbigayda ka salaama all people waa tahay aad baad mahadsantihiin daawadayaal waa cabdiqani baafo oo barnaamijkan idiin soo jeedinayay dabcan waxay igu martay ahaayeen fanaan da'yar oo Soomaaliyeed barnaamijku maanta wuxuu ku eegayntaa si toos ah waxaad uga daawanaysaa Somali Pure Online aniga iyo barbaarta kala duwan ee Somali Pure maalinteeda waxaan idinku dhaafanaa sidaa iyo nabadgelyo